imtixaanka la qaadayo wuxuu ka koobnaan doonaa marka 4 nooc anagoo ku saleynayna baahida wasaaradda iyo codsiga wasaaradda in aanu u kala qaadi doono 4 nooc darajooyinka marka lagu tartami doono aanu hayno hay'ad shaqaale ahaan iyo wasaaradda caafimaad ahaan waxa kamid ah darajada waxa loo tartami doonaa 9 boos maanta ay taariikhdu tahay 19ka bisha 12aad 2022 aan halkan ku shaacineynaa anigoo ka wakiila dhammaan xubnaha guddiga hay'ad shaqaalaha gudoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha guddiga agaasimaha guud iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka shaqaalihii ku meel gaarka ahaa ee u diiwaan gashanaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee kala joogay 6 gobol iyo 23 degmo doorasho ee dalka oo maanta halkan ku shaacinayno in boosaska aanu hayno aanu runtii ka qaadi doono imtixaan socon doono muddadaas oo runtii ka bilaabmaysa 26 ilaa 27 oo gobolka awdal noqon doona iyo gobolada kale oo runtii iyaguna noqon doona sida ku cad jadwalka cidda ama shaqaalaha ku meel gaarka ah runtii u diiwaan gashanaa wasaaradda oo numberkoodu faraha badnaa waxaan rajayn doonaa in sanadba sanadka ku xigta aanu si ku meel gaarka looga saaro tirada loo helo miisaaniyadda looga helo loo shaqaalaysiin doono si ay u noqdaan xubno kamid ah shaqaalaha guud ee qaranka si ay u yeeshaan xuquuqaha iyo waajibaadka uu sheegay xeerka shaqaalaha dawladda xeer 97 2022 haddaba waxaan haynaa xogta dhammaan shaqaalaha ku meel gaarka ah ee jooga wasaaradda caafimaadka min gobol min degmo iyo min tuulo kuwaasi oo runtii fursad u heli doona inay imtixaan furan oo daacad iyo hufnaan iyo kalsoonimo ay ku dhisan tahay runtii aanu ka qaadi doono shaqaalaha ku meel gaarka ah ee xarumaha caafimaadka iyo goobaha caafimaadka iyo goobaha wasaaradda ay ku leedahay dhammaan dalkaba runtii ka mid noqon doona haddaba shaqaalaha ku meel gaarka ee geli doona imtixaankaasi waxyaabaha shuruudaha looga baahan yahay waxaa kamid ah kow inuu ku jiro marka koowaad liiska shaqaalaha rasmiga ah ee ku meel gaarka ee wasaaradda iyo hay'adda shaqaalaha u diiwaan gashan ama uu haysto warqadda hawlgelinta labada hadduu marka horeba diiwaangelinta ku jiray warqaddii hawlgelintana haystay wuxuu xaq u yeelanayaa marka inuu imtixaanka ka mid noqdo sidoo kale waxaa looga baahnaanayaa inuu keeno shahaadadiisa oo original kaarka dhalashada oo original iyo runtii inuu ka mid yahay shaqaale weynaha qaranka ee gaar ahaan wasaaradda u diiwaan gashan ee jooga 23 degmo doorasho ee 6 gobol ee dalku ay ka kooban yihiin darajooyinka marka lagu tartami doono aanu hayno hay'ad shaqaale ahaan iyo wasaaradda caafimaad ahaan waxa kamid ah darajada waxa loo tartami doonaa 9 boos oo ku kala filqsan 23 degmo doorasho ama 6 gobol oo runtii aan u qaadi doono si siman sidoo kale darajada B waxa loogu tartami doonaa 107 boos oo runtii iyaguna 23 degmo doorasho iyo sidoo kale noqon doona 6 gobol imtixaanka la qaadayo wuxuu ka koobnaan doonaa marka 4 nooc anagoo ku saleynayna baahida wasaaradda iyo codsiga wasaaradda in aanu u kala qaadi doono 4 nooc kow in aan u qaadan doono imtixaankaasi ay qayb ka noqon doonaan 32 dhakhtar oo imtixaan laga qaadi doono oo 6 gobol ku kala filqsan oo baahidii wasaaraddu ay soo gudbisayna kow ka ahaa sidoo kale umulisooyinka in 80 boos aan iyagana u kala qaadan doono dhammaan 6 gobol sidii baahidii wasaaraddu ay soo gudbisay iyo 42 kalkaaliso oo dhammaan 23 degmo doorasho ama 6 gobol iyagana imtixaan looga qaadi doono iyo 52 boos oo waxa loo yaqaano caafimaadka guud ama general health in iyagana ka qaadi doono oo runtii 23 degmo iyo 6 gobol ku kala filaqsan marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ka shaacinayo macluumaadka aan idin soo sheegay in shaqaalihii ku meel gaarka ahaa wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaarad ahaan iyo hay'ad ahaan aan isla garanay in bal tallaabo sanad baanu qaadno si shaqaalaha faraha badan ee ku meel gaarka ee u jooga wasaaraddaasi loo suulin lahaa ayna uga mid noqon doonaan shaqaalaha guud ee qaranka dadaal badan iyo waqti badan baan gelinay runtii wasaaradaha iyo hay'adaha kale waxaan rajaynaynaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadku in iyaguna ay mari doonaan jidka ay wasaaradaha iyo hay'adaha kale ay mareen oo idinka alle sanooyinka soo socda shaqaalaha jooga oo dhami ay ka mid noqon doonaan
shaqaale payrollka ku jira dhammaantood numberka runtii kumeel gaarka labada wasaaradood jooga oo fara badan ayuun baa sababay in waqtiga inta leeg ay soo qaadato iyo aminta inta leeg ay gaadho laakiin waxaan ku rajo weynahay ka hay'ad ahaan in sanooyinka soo socda runtii aan suulin doono kumeel gaarka aad baan runtii ugu kalsoonahay cidda imtixaanka qaadaysa sida xeerka shaqaaluhu sheegayo oo guddidu runtii garwadeen ka noqon doonto hay'ad shaqaaluhu iyo processka iyo nidaamka loo qaadayo imtixaanka oo runtii noqon doono mid daahfurnaan iyo cadaalad iyo karti ku dhisan tahay sida uu sheegayaan qodobka 12aad iyo 13aad xeerkuba runtii in loo qaadi doono imtixaankaasi oo ay noqon doonaan imtixaankaasi imtixaan cid kastaaba ay iska dhaxarki doonto si kalsooni leh oo hufnaan iyo daacadnimo ay ku jirto waxaan u rajaynayaa dhammaan 6 gobol gaar ahaan wasaaradda caafimaadka shaqaale weynaha jooga inay si furan imtixaanka uga qayb qaataan insha Allah waxaan u rajaynayaa inay heli doonaan aqoontoodii iyo arrimahoodii iyaga kaashanaya natiijooyinka soo baxa inay maalintaba heli doonaan runtii gobol kasta markaan joogno shaacitaankaasi runtii oo noqon doona in marka imtixaanka la qaado isla goobtaba lagu sheegi doono dadka guuleystayaasha waxaan sidoo kale u rajaynayaa in wasaaradda iyo hay'adda ay si dhow runtii ula shaqeeyaan dadkaasi oo imtixaanka gobol kasta waxa lagu qaadaya magaalada madaxdiisa ay yimaadaan waxaanay haystaan muddo 7 cisho ah 7 cisho wax kulli waxa la gali doonaa qabanqaabadeeda iyo hawlaheeda marka gobolka la isugu yimaadana waxa la sameyn doonaa hubin iyo sidoo kale waxa la sameyn doonaa in la eego qofka imtixaanka galaya inuu yahay qofkii saxda ahaa ee ka diiwaan gashanaa wasaaradda horumarinta caafimaadka sidoo kalena haystay warqadda howlgelinta ee soo sheegay waxaan rajaynayaa oo ku kalsoonahay oo aan qirayaa in xubnaha imtixaanka qaadaya iyo guddiga hay'adda shaqaaluhu runtii ay si kal furan imtixaankaasi oo cadaalad ku dhisan tahay ay u sameyn doonaan waxaan ilaahay ka baryayaa mar labaad aan ku celiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa in uu ilaahay nagu asturo xilkaasi iyo dadaalka aan wadno oo aan si cadaalad iyo karti leh insha Allah hawshaasi u galno dhammaan dadka daawanayna waxaan ka codsanaynaa inay nagu duceeyaan imtixaankaasi in si cadaalad runtii uu nagu dhaco oo furan National Electronics waa hoyga agabka elektrooniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda